السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kanaalkeena waxaan maanta kusoo qaadanaynaa waxbarashada iyo ilmaha. Waalidka waxaa laga rabaa, waalid haddii la dhaho waa hooyo iyo aabo. Aabo iyo hooyo waxaa laga rabaa inay ilmahooda iyagu kalsooni siiyaan oo kalsooni waxbarasho ay siiyaan. kow marka hore Allah haddaad ku xiran tahay, alxamdulillah, shukran lillah, markastana ilaahay u shukri. Marka labaad ilmahaaga ku tababar diintaada islaamka. marka taa ka timaada diintaada islaamka aad bartid oo aad waxbarashadooda aad siisid ee qayb ku leeyihiin ilmo waqti uu leeyahay kuwa quraanka gaaray kuwa alfa ku jira kuwa intay ka gaareen quraanka iyo waqtigay joogaanba ku bar. taata ka soo qaadano waxbarashada maxaa jeclaysiin kara ilmaha lambar 2 waxa jeclaysiin kara waa waalidka. macallin wax ma jeclaysiin karo, macallinna wax ma boqolkiiba waxa laga yaabaa 60 inuu macallin waxbarashada keena, laakiin boqolkiiba 95 waa ina uu guriga waxbarashada ilmuhu uu ku jeclaada uu waxbarashada sameeyaa. muxuu soo qaadanayaa cunugu markuu arko aabihii iyo wax akhrisanaya ama hooyadii wax akhrisanaysa, cunugina dhinacu kula soo fadhiisanaya. laakiin hadaa hooyay mobile aad ku jirtin ama aabo mobile aad ku jirtin, cunuguna telefishinkii uu ku fiirsanaya oo aadaya. telefishinka qaybtiisa mar baan ka hadlaynaa insha Allah. laakiin ilmahan waxbarashada waxa ku jeclaysiin karnaa waa waalidka. waqti samayso oo bil hal saaca halkaas saac waxaad samaysaa miiska la soo fadhiisa ilmahaaga. ka bacdiina ilmahaaga marka miiska la soo fadhiisatid book soo qaado. muhiim ah in hooyo aqoon leedahay, muhiim ah in hooyo waxbarashadaadu heer ama aabe waxbarashadaadu waalidku uu heer sareeyo leeyahay. laakiin ku dadaal sida ilmahaaga adiga aad wax u bari lahayd oo wax u akhrin lahayd. book marka soo qaato cunuga book buu soo qaadanaya, qalin marka soo qaato cunuga qalin buu soo qaadanaya. haye alaabahooda iyo khudaartooda soo agdhig. cunugaasi khudaartii goor uu cunay ma uu is ogaanayo waayo wax uu akhrinayaa. haddaad dhahdid maanta waa saacadii aad u sheegto, ilmo kasta uu ku xisaabtamaya saacadaas waxbarashada inay tahay. marka aan u kala qaadno waxbarashada adduunyada iyo waxbarashada dhinaca aakhiro loo shaqaysanayo. marka hore cunugaaga bar diinta islaamka oo aan inigu soo sheegay. diinta islaamka waa shay muhiim ah inaan barno ilmaheena aan ku barbaarino aan ku korino. muxuu ahaa kitaab jaamaca soo qaata. maanta waxa dhahdo maanta waa maalin akhris ah, kitaabka quraanka akhrisanayna. haye inta hooyay taqaanid aabo inta taqaan adiga bar. haye inta kalena hadii adigu aqoon wara barta. youtube yaa jira quraanka laga barto, higaada laga barto, wara sameeya. markuu arko hooyada inay wax sameynaysa aabi inuu wax sameynayo, cunugu ku dayanaya. cunugu waa dayashada hooyada iyo aabaha. insha Allah aan ku dadaalo sida diintana islaamka aan u bari lahayn. cunugaaga salaada lambar 1 kii soonka gaari soonka inuu soomo. quraanka sidoo kale isagana inaan musta ka dhigno oo aan meelaha ay quraanka akhristaan maalintii. lambarka 3 aan soo qaadano waxay tahay adduunyada sida iskuulada kale, kindergartiga oo kale, sida xadaanada oo kale, Soomaali xadaana lagu dhahaa u maleynaa oo kale. sidee aan ka caawin karnaa ilmahaaga haddaad adigu guriga ku caawin xisaabta 1 afbeetada 2 wax jarjarista 3 qoritaanka wax la qorqoro 4 waxyaalaha la nashqadeeyo iyo jarjaristaba. intaa haddaad cunugaaga ka caawin hadaan kindergarten ama xadaano wax ay ka caawinaysaa malaha. waa ina hadhowna markii uu cunugaaga 3 sano uu kugu jiro iskuulkii aad u gudbaysaa. iskuulka marka u gudubto waxa laga yaabaa sanadkaas uu iskuulka uu gal lahaa cunugaaga inuu kaaga haro oo sababtoo ah in dib loogu diro iskuul kale oo ka soo caawiya wax jarjarka iyo alfbeetada iyo waxyaalahaas oo dhan ka soo caawiya baa loo diraya. cunugaaga hal sano halkaas kaaga tagay ama 2 sano halkaas kaaga cunaysa ama 3 sano haday doonto halkaas kaaga cunaysa hadaan adigu hurdada ka kicin. marka aaba iyo hooyo hurdada ka kaca. inaga waalidiinteena ina soo qabatay, inaguna aan ilmaheena qabano inaan ku mashquulno ma aha telefishin
inaan ku mashquulo ma aha muxuu ahaa isoo qabo mobile waxaa laga yaabaa aabihii mobile buu wataa hooyadin mobile bay wadataa cunugina mobile loo dhiibaa igaga aamus leexay qasin camal waxaas wax fiican ma aha waalid haddaan nahay ilmaha maskaxda aan ka korino ilmaha aan jeclaysiino waxbarashada waxay tahay cunug waxbarashada waa kasoo taaganaya wallahi wuxuu akhrinayaa ma laha cunug inta buugi qalin u dhiibta dheh qolka wariya wax ku akhriso ha u soo riixi wuxuu ka qabanaa qolka wuxuu ka qabanaya ma ogi waa inaad samaysaa cunuga adiga la soo fadhiisataa adigu maxay qabanaysaa markaas guri shaqadiisa ku meel ha ku taalo faraha ka qaad saacada ilmaha iskale ilmaha si ilmaha saacadii maalintii waa habeen iyo maalin habeenku waa la hurdaa laakiin maalintii inta saac hal maalin hal saac ma awoodi weydo ilmahagana miis la fadhiistid oo wax abartid aw wax barataan labadiid idinkuba adigu laftaada waxba faa'iideysa haddaan luqadda wadanka aqoon luqadda wadanka soo qaado kitaabkaaga soo qaado muxuu ahaa waxbarasho dheeraadkiya helaysa hadda wadanka luqadiisa taqaanin isku day inaad ingiriiska sii baratid isku day quraanka inaad sii xafidid quraanka haddaad taqaanin isku day inaad micnihiisii sii baratid isku day waa isku dayi kartaa hooyo iyo aabo laakiin muhiimadu ma aha inaan inagu aan dhahno ilmihii iskuul ii aadaa ama xadaano ii aadaa guriga markuu soo galo boorsada halkaa dhig haye telefishan dhab ku sii insha allah nagaska videona waxaan idin soo dhigayaa iskuulada iyo heerkaysa ay u kala sareeyaan insha allah salaam